aad iyo aadan u faraxsanahay alxamdulillaah waxaan rabaa in aan mahad weyn aan u diro dadkii na taageeray noo suurtageliyay in caawa aan rayno waxaan filanayaa in gabdho ama wiilalba Soomaalida dhan oo na wada fiirsanayso in ay guushayda oo ka duwan guulalyaalkii horeete ay u turjumayso in markii aad ku dhaqaaqdid siyaasad oo dadkaaga dhiirigeliso siyaasad daacad ah siyaasad ka shaqaynayso horumarka wadankaaga in ay tahay siyaasad lagu guuleysan karo in aan dareenno annaga haddii aan kursi ku rayno ama city council ah ama school board ama state house ama senate-ka ama congress in dadka kale aan la simannahay oo aan u dadaalno u dhaqaaqno ama aan ku firfircoonaano sida dadka kale ay u firfircoon yihiin guulaan rajaynaynaa guulaan aan ku shaqaysanay waxaan rajaynaynaa in wadankeena uu yahay wadan dareensan dhibaatooyinka badan naga soo gaaray madaxweynahan oo aan diyaar u nahay in aan bilowno sidii wadanka looga shaqayn lahaa dadka dhan in la isku keeno sharciyana la dejiyo dadka caawino dagaalka in meeshiisu ka sii socon doonay ila tahay madaxweynahan saad u ogtahay ma aha madaxweyne raba inuu dadka la shaqeeyo waa madaxweyne aniga aan u dareensanahay inuu yahay ciyaal suuq aan danaynaynin in uu rabo dadka wadanka ku nool in ay wada sinaadaan oo si sinaan ah uu uga wada shaqeeyo marka waxaan filanayaa in dadkana intaas ila dareensan yihiin oo uusan noqonin madaxweyne nagu soo laabto Joe Biden waa qof dadka dhageysto una firfircoon in uu nala shaqeeyo anagoo dhan uu rabo wadanka inuu noqdo wadan dadka xilsaarayaalka dhan ay isla wada shaqaynayaan sidii dadka waxtar loogu qabto